dad iska lahay halkaani waa bartamaha suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ee degmada howlwadaag cabaara 4 saac ee xalay ayaa halkaani waxaa ka kacay dab xoogan kaasoo burbur xoogan u geystay goobihii ganacsiga ee halkaani ku yaalay aasatan halkaani waa qaybta lagu talo harqaanka waxaa soo gaaray khasaare xoogan oo guud ahaanba halkan waxaa ku burburay harqaamadii iyo guud ahaanba dharkii ay tolayeen ganacsatadii halkaani ku ganacsanaysay oo la hadlay muqalbaahiyaha SBTV ayaa waxa ay sheegeen in halkaani uu ka soo gaaray dhib xoogan ayagoona inta badan ka cabanaya wadooyinka soo gala suuqa bakaaraha oo aad cariir u ah waxa ayna sheegeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ay wax ka qabtaan dhibaatadan xoogan ee ku soo noqota mar walba suuqa weyn ee bakaaraha ayagoona sheegeen in loo furo wadooyin waaweyn oo lacalla hadii dib oo dhaco ay u soo maraan gawaarida dadamiska ama gurmidka. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah ka shaqaystayaasha suuqa weyn ee bakaaro khaas ahaan harqaanleyda waxaana soo gaaray khasaaro oo ah harqaaminkii aan ku shaqaysanaynay iyo wixii oo dad aan u shaqaynayn qaar ka mid ah alaabtooda aan haynay ayaa waxaa meesha ku baaba'ay kulligooda israaceen marka dadkii walaalaha ee dhinacayda joogeen harqaamadoodii kulli waa baaba'een waxaan leeyahay sabar iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo ayagana ay ilaahay ku mahdiyaan sida ilaahay bedel khayr qabo oo usayo dabku wuxuu kacay ugu yaraan adiga saacadda markay 4 saac bur ee meelaas ilaa iyo wuxuu socday 5 saac bar ayuu socday dabka muhiimadda ilaa hadda dabdamiskii waa kana waa soo socdaa laakiin mar hore dabka xoogiisa waa dhamaaday dabka wallahi ilaa hadda wuxuu ka kacay mal sheey kor cadeen rasmi ah lama hay laakiin waxa la sheegay in oo maqaayada iyo harqaanka wallahi hadda an khasaar hadda oo korka sheegi karo ma jira laakiin khasaar culus soo gaartay harqaanleyda khaas aan xoogsatay iska aayeen nin walba wuxuu asmaantii shaqaysto oo isticmaal jiray badanaa haddana waxa waaye kuwa hadda in la garab siiyo mudan waa harqaanleyda waxa leeyahay ninkii wax uu awoodo kuwii walaal ee oo isu yaqaanaan inay garab siiyaan isla markii sidii walaalka oo xamaalinay oo u xamaashto shaqadiisa oo sii wato horta khasaar oo weyn oo far badan ayaa soo gaartay dadka anaa ka mid ah waxaa iga gubtay aniga 101 daaqadood oo dad islaameed ah iska lahaa ayay gubtay iyo 8 harqaan iyo hal taali 9 harqaan meesha ay ugu baaba'een dad oo aniga oo ilmad aan way joogaan oo sidoo kale oo saxaabkaas wax uga baaba'een way jiraan way badan yihiin mal soo koobi karo mal soo koobi karo yani dhibaato aad iyo aad u far badan ay halkan ka dhacday masiibo rabbaaniyo waan wixii ilaahay keenay macnaa alxamdulillah ayaa leenahay macnaa ilaahay qadartiisa waan aaminsanahay mar walbana waa kalsoonahay alxamdulillah niyo wallahi hadirtaan xaqiiqadiisa ma hayno hadirtaan yani dabkaas wixii uu ku bilowday ma hayno dab aadamiya ila koronto ma sheegi karno hadirtaan xaqiiqadiisa ma hayno Allahu a'lam tas ganacsatada ama gobolka gaashaamada ay dhibaatada waa mumkin sawa dhibaatadan mar walbana way soo noqnoqotay waxaana fiicana macnaa yani gadoomiyaha degmada in yani iyo maamulka markaas waxa loo baahnaa in arrimahaas oo dhan ay iksiraad koraan oo yani afkooda ay meel saaraan laakiin ilaa hadda arrimahooda taas lama meel saarin waa sanad walba insana uu soo noqnoqonaysa dhibaatadan marka waxaan ugu baaqayaa horta dad badan oo dhibaato soo gaareen ayaa jiraan yani dadkaas yani in loo fiiriyo macnaa markaas oo yani la garab qabto insha Allah waa dhawahay walaalkayga marka imaanay xali 4 saacaan boot bajaaj meesha ka soo qabsaday haanta dheer marka halka imaanay dhinacana ka soo galay marka dabkiyo waxaan arkay marka arroolay dhan isla qabsaday marka dhinacana ka soo wareegsaday waxaan arkay hadan arqaankiyo maaragtay aan gubinayo sidii yeelay aan lahayn marka waa saana soo baxay dadamiskii baa imaaday marka waa ka wallahi billahi wax la qiyaas karo ma harqaanley waxa soo gaaray dhibka soo gaaray wax la qiyaas karo ma kulli qof kaligiis hadlaayo waa arkay qof kaligiis hadlaayo qof maaragtay adiga intaas iga maqan dhaayo qof xisaabtiisa aan la sheegi karin qof intaas daaqad oo dad iska loo keenayo maaragtay adoo la tolay beesidiisana ka maqan tahay qofka waxa si waacday qofka wallahi dabka khasaarada oo geystay waa khasaaro la kabsi karo ma aha laakiin ilaahay aan oo gargaaro insha Allah khasaaro la koobi karo ma wallahi billahi waa la yaaban yahay dhibkan waa sidaan dhismadan iyo maaragtay sartaan hadda waxa ka sii dhow wada sararkana xogaa lagu ciimado baadii oo jingad la ahaa lahayd baarada saa waa ka sii bedelaan lahayd xal saa arkay iyo hadda saa u jeedo isa hadda dhici doonto kullee ma sheegi karo laakiin waxa loo baahan yahay baaladan jingadan waxaan dadkan dhulkan dadka iska leh inay ka dhigaan sar fiicnaanta saasay ku jirtaa barniyo horta waxaan imtixaan waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala
وحاول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين marka dadka bini'aadanka waxaa loo baahan yahay inay sabraan marka hore ay ku sabraan gaajada dheregta hantida ka gubanaysa wax walba inay ku sabraan aniga qolkaana iska lahay hadda qolkeyga tilmaan ahaan le loo haya 4 saac 20 dhibna gurigeyga tagay xalay shaqeynay marka guriga tagay dad suuq joogan ay soo waceen waxay dhaheen warniyow suuqii eber waaye qolkii dariska dibka uu ka bilaabtay soo gaar cashada aan cunay gacanta ma gelin gacmaha xataa miska dhaqin ilaahay wuxuu maqlay isla markii waa soo istaagay bajaajaan dalbaday bajaajkii waa sugu waayey waa ka soo hormaray bajaajkii waa iga daba imaaday marka alxamdulilah haddaan imaadeen waxaan arkay meeshii oo israacday waxba aan badbaadin marka wixii xarqaam ku jireen dhan waa gubteen waxaa kaloo gubtay dhar oo meesha yaali aa gubteen oo dad iska lahay oon ku qiyaasay inay 40 daaqi yihiin waa gubteen xarqaamada xataa waa kuwaan waa ujeedaa biraha waa la arki karaa intay yaalaan ugu yaraan ilaa 9 xarqaan 8 xarqaan camal waay oo kuwaan waaweenka ah halka qol keligiis kor iyo hoos oo dhisnaay jiinkad waay korna xarqaama saarnaayeen dad ku shaqeynaa ilaa meesha xariir waay hoos dadka mawdadeeqis mogtay kor iyo hoos loo kala dhistay marka kolleytaba wixii ilaahay oo noo soo amray oo maaragtay oo noogu talagalay waana qabsadeen alxamdulilah aan leenahay mar walba dadka kalena waxaan leeyahay ayagana inay u sabraan ilaahay maaragtay bedel khayr qabo oo siin doona hadday u sabraan marka sabarkan aan dardaarma dadka kale ganacsatada kale niyow ayagana kulleyba nin walba kii $10 iskale oo ka gubatay 10kiisa u xanuun badan kii 100 kun ka gubatayna 100kiisa u xanuun badan marka nin walba tabartiisu waa mogtay marka kulli ayaga dhammaantood waxaan leeyahay iska sabra ilaahay bedel khayr qabo oo idin siinaa marka waxaan leeyahay dadka kale oo dadka qaraawadooda iyo dadka kale xataa oo masaakiinta ayagana ha ku caawiyaan dadkii oo walaalood wixii oo u gali karaan ha ku caawiyaan aan saasaa dhihi lahay ilaan saasaa wanaagsan qofkii waxba aan haysanin ha u duceeyo ma aha nin walba hadda horta inta badan xarqaan kire ah waa yar yahay laakiin waxaa u badan nin walba wuxuu la shaqeeyaa dadoo la shaqeeyaa mid qofka oo imaana suuqa qof oo la shaqeynaa shaqaalo yahay ewelba wax yar oo ku shaqeyn jiray wixii yareed oo shaqaysanayay ilmihiisa toosiyo maalinta kale soo bixi jiray maho marka hadda kan shaqaalaha oo meesha waxba aan ka yeelan xataa shaqiiso meesha ku waay beer haddoo imaad meel ku shaqeynaa male dhismaha waxay qaadan kartaa 3 bilood bil 2 bil ay qaadan kartaa hadba si loo fududeeyo waay marka nin walba kii meel lahaay iyo kii meel aan lahayn isku mid leeyihiin كل هذا إجارته ودمانته إجارته وحافظة إجارك دقين كرا القرباء الماء وجوا ماشى حمر واي كروا تلابدي أقاد العقوة مركا كي شغالها أي كي تاجرك أي أو ميل لهاي لابد بسكم مدلة مرول مرك دبك وحاسة وسيد الشيء مرة مقاوى لا مرة كورنتوها لا لكن حقيقة اسمع وحنا كدم با وقفنا إيه أصار ما هاي لكن سيدا مغلى مركي هور كورنتوها مغلى هذا كورنتي دكتور كهين هذا حال دبوة مركا korontada iyo dabka la sheegay ba hal meel lagu sheegayo isla qolkaas la dhoo korontiisa kacdi ama isla qolkaas la dhoo kushiino dabkiisa kacay hal meel la ku jidaa kulay ilaaha oo maartay meesha ma jooganag meeshaan saan aad u jeedid waaye khasaar weyn dad ku gaartay harqaaman badan ku baabacay dhar oo dad islaameed loo toray ku baabacay aniga ahaantay faadama ahaantay dhar harqaan mali laakiin naagaha oo dharka xirxira ahay oo tarashleeyta oo dadka islaameed u xirxira dharkii islaameed xirxira ilaa iga gubtay maahin aan harqaan mali laakiin wiilish walaalahay hay oo meeshan joogay harqaamankii ka gubteen wallahi aniga ahaantay farasamale ahay laakiin hoole islaameed waxa idaawanay waxa ka codsanaa kulay aniga horta dhibkan waan ugu soo noqday dadkan ma arday harqaamadooda dhowr badan ay gubteen amaanadii lagu dhiibay wixii aad soobsatay wixii maalan joog aad ka raadsinaysi ma arday lacagtii aad ku sugaysi waa ka gubatay waxa ka codsanaa muslimiinta aniga waxa ka codsanaa intii badan qadaysi meesha inaan noo hagaajiyo oo kaalmana si cabdixakiin xasan cali muuqaal baahiyaha SBTV suuqa weyn ee bakaaraha degmada Howlwadaag magaalada Muqdisho.